wacyigelinta waxsheegidda iyo waanooyinka waa hadiyadaha ugu qaalisan ee qof loo hibeeyo ka dhageyso qof kasta waxa uu sheegayo xitaa haddii aadan ku raacsanayn afkaartiisa kala saar oo qaado inta ka anfacda kuwii aadan faa'iido u arkinna isaga tag hase ahaatee ha ilaabi xishmadda iyo tixgelinta uu ka mudan yahay qofka wax kuu sheegay waayo xigmadaha iyo murtiduba waxa ay kaaga yimaadaan meelo iyo dad aadan ka filayn sidaad doonto u kala sooc laakiin ha isla weynaanin weedhaha murtiyeysan waxaan ka soo waariday walaalka Yaasir Mukhtaar ee gacaliyaal goor kastoo idin tahay salaan diirimaad wacan misna dabacsan oo sare oo diintii Ilaahay ducadii ku laran tahay ayaan duca iyo samo wanaag idinku soo dirayaa iga guddooma gacaliyaal assalaamu calaykum ogow adiga ka hor amiirad ay ka tahay indhaha hooyadeed boqorad ay u tahay qalbiga aabaheed geesiyad ay u tahay niyadda walaalkeed wehel ay u tahay nolosha walaasheed haddii aadan u samayn karin wiil yahow ka badan inta ay ku haysato gurigeed haddii aadan u samayn karin nolosha ay ku riyoonayso fadlan ha ka soo kaxeen hoyga ay wax walba ka tahay haddii ay dhacdana ka ilaali indhaheeda ilin ka ilaali nolosheeda murug ka ilaali agteeda caro kuna ilaali farxad iyo jacayl dhaba waa gabar walba inta ay naga mudan tahay haddii aynu nahay ragga Soomaaliyeed u wanaaji uga taxadar una jeclow sida hooyadeed u ilaali una garab istaag sida walaasheed u xafid ugu naxariiso uguna samir sida gabadhaada ula tali u dabacsanow una qadari sida walaalkeed u kolkooli mar walbana dareensii inaad tahay geesigeeda sida aabaheed dhabtii waxa ay kula joogi doontaa inta ka harsan nolosheeda runtii way ku mahadcelin doontaa mar walba goor kasta iyo waqti kasta waa ayna ku garab istaagi doontaa xaalad walba talo wiil yahow ogow gabadha aad nolosha la wadaagayso waa hadiyad hanti iyo amaano waxa ay kaaga soo dhexbaxday hooyo aabbo iyo walaalo waxa ay dooratay la noolaanshahaga waxa kugu aaminay reer waxa ku hadiyay Allah waxay nafteeda u goysay in aad adiga hogaamiso ballan ay ku qaaday inay kula qaybsanayso wax walba waliba ayadoo diidan in aad kaliya noolaato fadlan u dhowr sida qiimaha badan ee amaano hadiyad iyo hanti loo dhooro gabagabo garo inay tahay quruxda noloshaada iyo kor u qaadista dadnimadaada hana hilmaamin inay tahay hooyada caruurtaada iyo raaxada naftaada rabbi ha inoo dhowro gabdhaheena